بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo bisha January ay 2020 waxaa halkan aan soo keenay hadaad tihiin bahda warbaahinta guud ahaan warbaahinta qaranka warbaahinta gaarka loo leeyahay dhammaantiin inaan idin la wadaagno macluumaad ku saabsan duulaankii xalayta lagu soo qaaday dalkeena xalayto saqday dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya Defense Force iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee baryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakulaysay ay quudinaysay oo wada socda iyo xuduudda ka soo tallaabay bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo taasoo ku noqonaysa dhabar jab iyo qaran jab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaado oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow boqol maxbuus oo dagaal la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin waliba laadi qori dhacayee oo ah wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed diinta islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan in aanu halkan ku qaybino sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd boqol in ku dhow khasaare nafeed uu soo gaaray sida loo jabiyey baan rabaa in yar inaan idinka fiirfireeyo ama idinka tilmaamo kow horta xoogga dalka Soomaaliyeed Somali National Army ciidamadeenu way diyaarsanaayeen mar walba waxay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo kaga yimaada jaha kasta diyaargarowgaasi wuxuu baajiyey ku talagal iyo qorshe ay ka wada shaqaynayeen cadowgii cadow kalkaalku muddo dheer waxa kaloo nimanka jabiyey shacabka Soomaaliyeed oo naf iyo maal isla barbar taagay ciidankooda xoogga dalka oo u hiiliyey cidda shacabku raaco ayaan baana mar walba guusha tan saddexaad ee araxda ka jabisay nimanka waxay ahayd fallaagada wiilasha la soo qalday ee lagu rabay in lagu ababiyo mucaaradnimada iyo qarandiidnimada oo aan niyad u haynin waxa loo dhigayo iyo waxa loo sheegayo iyo waxa lagu dagaalgelinayo waa ogeydeen maalmahanba iyo usbuucyadanba way soo dhiibayeen saraakiishooda iyo wiilashuba way iskaga imanayeen waxaa laga yaabaa qolo islahayd mar una magaalada tagtay in iyaguna u haysteen ciidan u dagaalamay sidii ayay wiilashiisu soo dhiibeen moral may haynin ay ku dagaalamaan moral la'aantaasina iyo niyad la'aantaasina waxay keentay in ay jabaan oo ciidanka aan niyad haynin ma guulaysto kuma ay qanacsanayn dalkaaga ku duul hooyada ku duul walaasha ku duul gurigaaga ku duul kuma ay qanacsanayn sababtaana way u jabaan khasaare ba'an ayaa loo geystay fallaagada sidaan hore u sheegay waana ciidan badan baa laga qabtay
iyagu khasaare noocay geystay sida caadada u ahayd marka qofka fallaagah uu ogyahay inaanu ciidanka la dagaalami karin waxay abbaareen shacabkii iyo ganacsigii waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal waa naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladooda hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer balad xaawo ah oo la garanayo ayaa 5 carruur ah iyo hooyadood laga waday which is a very very sad aad u qalbi jaba oo u tacsiinaya qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee balad xaawo ee caanka sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay waa barnaamijkii dawladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka waliba khaasaha shirkadaheena waaweyn ee Hormuud iyo Somton ay in badan kula dagaalamayeen in Hormuud la burburiyo ma aha wax ka yimi aqliga wiilasha waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkadu burburto oo aanay shaqaynin iyo doonayeen waa se laga guulaystay waxaan rabaa inaan baaq u diro nabadiidka ilaa shalay waxaa ogeydeen oo iyadu dawladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo sidaa musaakaba warqadda ku soo saaray waxaasoo dhammi waxay muujinayaan Soomaaliya is under attack Soomaaliya in lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeenna shacabkeenna iyo dawladdeennuba waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan waxaan baa ku dirayaa wiilasha la soo qalday inta ka hadhay ee xuduudda dib uga tallowday inay ku soo noqdaan ciiddoodii calankoodii dawladdoodii iyo guryahoodii diidaanna inay fawda sameeyaan bay dalkooda khalqalgeliyaan waa mahadsantihiin su-aaluhuna weydiin ساعات وزير ومحمود صوفي السنة وكتبت في في مقدشو ciidamada isoo bahaystay dhibaatada ay sheegtay in shacabku u geysteen marka laga yimaado dhanka ciidamada dawladda ma wax saaro oo soo gaaray mar haddii dagaal dhaco dagaal waa taqaanaa laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii hore ka sii tabaabushaysteen marka ciidanku ka sii tabaabushaystana waxa yaraanaya ama aan dhacaynba khasaaraha ilaa hadda riboodyadaanu haynaa dhaawac baan soo gaaraya waan iga haya sawirradana waan idin tusayaa madaafiicdii iyo hoobiyaasha isticmaaleen waa kuwan ay ku xasuuqayeen jabhadda iyo Kenyaatiga wada socda waa missileskaas aan idin tusayo marka ciidanku way ka feejignaadeen laakiin cid ay aad wax u yeeleeyeen waa shacabka xilligan doorashada iyo dagaalka xiriir ma ka dhaxayn karaa islaada dawabana lagu soo duulay maxaa ka dhaxayn haye waxa qaadaya cidda halayto saqdii dhexe iyadoo la hurdo oo hooyooyinka iyo maatida iyo carruurtu ay hurdaan soo bilowday madaafiicda soo bilowday hoobiyaasha soo bilowday missileska ee xuduudda ka soo tallowday ee dagaalka qaaday ee dagaalka bilowday haddii dagaalku meel kale ka dhici lahaa waxaad weydiin lahayd su'aalo kale laakiin ilaa xalay waxaan ku jirnay difaac iyo badbaado weliba marka askariga Soomaaliyeed uu difaacayo waa askari dawladeed sababta aan sawir u soo bandhigi karin askari waa sababta dawladnimada jirta wuxuu ilaalinayaa hantida wuxuu ilaalinayaa shacabka wuxuu ilaalinayaa qofka la soo qalday ee walaalkiisa naftiisa inuu qabtuur rabaa inuu dilo ma rabo marka waxa qaadaya cidda soo duushay cidda amarka soo bixisay cidda desperation-ka ah ee rabta inay dalka khalqalgeliyaan si aan dalku doorasho waa xaalka waa la soo afjaray waxaan se mar walba heegan u nahay difaaca dalka ساعة الوزير جبنا وحول شيء إن عندما الدولة يجوا إدراك الصومال ودجال كان كيف قاعد سؤال الفتح كان كيف قاعد جبلان ما بتشوفين بلا تحاول جبلان هذا بحول ما يذكره أساس وزير سؤال جبلان ما معمول قبلات شنت معمول لماذا مصير معمول إنسان أقوى سنة الدولة شوف اللي هو معمول فيدرال ممبر ستيت وأنا دوقتها حالات دي هيراركي صومرتي heerarkeedii doorashada heerarkeedii ciidanka heerarkeedii dhismaha dawladduna waxay mar walba diyaar u ahayd wada shaqaynta heshiiskii lagu galay 17 Sebtembar
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam baa saxaxay in doorasho dhacdo oo ay ka dhacdo Garbahaar iyo Kismaayo wixii intaa ka badan waxaas waa siyaasad waa wada noolaansho waa dastuuri laakiin dagaal saq dhexe la soo qaado oo madaafiic lagu soo bilaabo oo hoobiyaal lagu soo bilaabo ma aha qadiyad Jubbaland waa qadiyad وزير حالا دجال دولة الصومالية كويسة شعب بلد حاول. هذا مرنا وير باطي مرنا دفاع. هذا له هي استدفاعنا سديدة تسوى ماشي لكن we will never surrender. اسمه دي بينه تل كان دفاعنا عيدا دفاعنا على كان دفاعنا وحي أن أدارنا أو هاي شريتان كي يقرن ماذا أمة الصومالية ين دفاعنا منا هل تاكو كم تل كنا كم تناسلينه منا أو أقلنا إن شيء كتل. وزير Jubbaland waxay sheegtay in magaalada Barxa hadda malaha ay soo dhacaan magaalada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Somali National Army iyo maamulka gobolka Gadow ayaa gacanta ku haya walba iyaga gacanta ku hayay maamulayay shacabkoodii iyagooda wada jiray maamulayeen wada shaqaynayeen wada noolaayeen wada faraxsanaayeen aad iyo aad laakiin duulaankan dhacay ayaa mushkilada duulaanka oo kaliya maaha duulaamadu waa farabadan yihiin xitaa waxa jiray hub culus ولا دولة حدودها أردن لقى خلق الجليو dalkani 91 buu burburay mar dambe ma ogolaanayno إنه nool oo taagan in hub lagu burburiyo banaanka laga keeno iyo jabhada banaanka laga keeno waa mahadsan wasiir cadweyn su'aal baan siinay taas waxaan doonaynaa sida sheegtay hub badan baa la keenay inta gacanta ku jira halka laga leeyahay wadada ku soo qabatay jira waa meesha aanu hadda ku daba jirno meesha laga keenay meesha lagu waday wixii oo dhan baanu ku daba jirnaa investigation iyo baaris waa socota waxaanu dhawaan soo bandhigi doonaa halka laga soo saaray hubka faraha badan hubku ma waxaan sheegaynaa wax fudud oo hub aad u culus oo la rabay dalkan in mar labaad lagu rogo lagu qaxiyo lagu burburiyo qof Soomaaliyeed ama dalka ha jooga ama dibadda ha jooge oo raba dalkan in hal xariiq oo dambe gaadhaana ma jirto waa ku daba jiraa waana lagu xisaabtamaya sharcigan waa la horkeenaya wasiir adaad basaas u ogtiin hubkaas maxaad u soo bandhigi weyseen waa soo wadnaa wixii statementkii ugu horreeyay waan soo saarnay qoraalkii maanta baaristi baan wadnaa hubka weynaanu ogaano halku ka yimi iyo il halka ugu dambaysa ku socday sababta anagu waxaan leenahay system ilaaliya hubka ilaa marka hubku dalka soo galiyo ilaa marka la kaydinayo tan maanta dhacday waa mid loogu talagalay in mar kale la arkay iftiinka dawladnimo ee ummadda Soomaaliyeed u soo baxay in la damiyo yuriiduuna an yudfuu nuurallah waxay rabaan inay nuurka dawladnimo ee soo baxay damiyaan inaguna ma yeelayno waana noolaanayna waana jiraynaa qarankeenuna wasiir waxaa jirta waalidiin Soomaaliyeed oo maalin walba raadiya caruur tababar loo diray oo askar loo diray waa ka wasiirkii waa dhameeyay shirka jaraa'id uu ka tagay dabcan waxaan doonaynay inaan weydiino su'aalaha la xiriira ciidamada ku maqan Eritrea ee la sheegayo in halkaas ay jiraan waa wasiirkii waa tagay barnaamijkan iyo tabintan tooska waxa kala socoteen telefishinka Universal magaalada